Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan sokeeye saaxiibayaal iyo qaraabo waan salaamay waa nastay xasan fale oo idin dhahaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaantiin baryahan waxaan marti ku ahaa gobolka Turkiya magaalada Ankara waddanka Turkiya saaxiibayaal waan idin fiicanahay waan idin basaase bulsho yahay ma nabadba waa halkeygaan oran jiray halkeedii walaalayaalow waxaan rabaa maanta inaan idin iraahdo Soomaaliya ha noolaato I miss you guys all Somali maxay ahayd gobolkaad doonto u dhalo meeshaad doonto joog waxaan rabaa qiso yar inaan la qaybsado oo maxay ahayd nagu qabsatay meeshan Turkiyad inkasta horta Turkiyad waa waddan muslim waa waddan wanaagsan waa dad Soomaalida jecel maxay ahayd way ku soo dhaweynayaan waxay ku leeyihiin where you come from ya hadalkooda ayagu ingiriiska ma yaqaan waa waddanka waxaan uga yaabay luqadooda waxaan kuma hadlaan way ka faanaysaa u malaynayo marka qaarkood waxay ku leeyihiin where you come from aniga waxay dhahaan Sudan ma ka timid no are you from Eritrea no are you from Indonesia no aniga gabadha la socotay shalay oo maaragtay ayaa wax ku dhaheen are you from Indonesia no from Somalia markaas waxay ku dhahay oh Somali marka waa dad aad u wanaagsan shalay intaan bas raacnay oo maxay ahayd cabbaar xoogaa meeshaan rabnay ka dheer u soconay ayaan meeshii basku ku ekaa markaan tagnaan nidhi wow adresskaana raadinaynay meeshaan rabnaa inaan dhimaatay markaasuu mid kalaas nin weyn oo xoog weyn soo orday oo meesha bas yar u yaalla kom anaa intusaay soo bax afkan hadda aad ma yaqaanin ma ogtahay marka gabadha ila socotaa marka waxay u geysay meesha kortada meesha oo la geysto oo maaragtay ku tusaysa wadooyin ku tusaysa waxay tiri oo halkaasaan rabnaa kom soo bax buu waxaan marka uu noo sheegay markay gabadhi la hadashay oo si iskugu fasirtay Englishka iyo internetka intay gashay Englishka wax iskugu fasiraysa Turkishka isku fasiraya marka baskiisii dhamaan meesha yilay wuxuu yiri kaalay waan caawinayaa soo raaca waxaan ku yiri xaq u noo wada ninkaan markaasay tiri wuu caawinayaa baskiisa dhan buu wuxuu u dhaqaajiyo u wada inuu caawiyaa waxaan idin geynayaa meesha baska ka raacaysaan baska idin geynayaa meesha u socotaan ayaa idin geynayaa okay meesha markuuna keenay ayuu nala istaagay waxaan ku dhahay ninkaani muxuu noola taagan yahay maxay ahayd markaas waxay tiri gabadha way weydiisay meesha Google-kay geynaysaa marka waxa la isku tarjumayaa English iyo Turkish markaasuu yiri waxaan idinku sugayaa gaarigii baski raaci lahaydeen ayaan halkan ku sugaynaa ninka wuxuu taagnaaday waxaan ku dhahay uma baahnaa inuu nala sugee oo baskiisa ku jirnee waa hana dhigo baska lambarka hana siiyo annaga raacayna okay waxay tiri uma baahnid inaan maaragtay aad sugto mayu yiri don't worry turjumeesh way geysatay translationkii waxay tiri lacag ma naga qaadanaysaa no bahay may ninkii markuu cabaar taagna oo baski aan raaci lahayn oo nagu dari lahaa u waayay ayuu asagana qaaday markuu dhaqaajiyaa waxaan ku dhahay oh my god ninka weydii meeshuu noo wado xagee noo wadaa dheh war dad waxaa la sheegay dadka kaliyaha kala baxo oo la cararee noo weydii ninkan xoog weynna waa yahay markaasay ku tiri oh xagee noo wadaa markaasuu yiri anaa idin qaadaya meeshii u socoteen anaa idin geynaaya anaga marka waxaan u qaadanay si taxi ahaan in lagu qaadayo waayo waa ninkaan shaqaysanayo ahaa nin wuxuu ahaa maxay ahayd shaqaysanayo ahaa wuu dhaqaajiyay cabbaar markuu joogo uu istaajiyay dada u soo koray waxaan ku yiri ninkan wuxuu noo wadaa nacam halkiibuu asagu rabaa inuu intuu u qaato dadka maxay ahayd inuu u rartuu rabaa waan fahanay horta laakiin maxaa u koraayo qof iyo labo wuuna waday waxaan ku yiri 10 lacag 10 kooda 10 waxa lacagtooda waxa la dhahaa teela la dhahaa 10 teelo ayaan soo baxshay waxaan ku ninkan 10ka teelaan siinayna okay
haddii kaleeta xataa wuxuu naga qaadan doonaa lacagta dadka uu ku qaadayo laakiin annaga maadaama awgeena u soo baxay 10 teelo aan siinaynaa gabadhii aan ku dhahay lacag 10 teelaan boorsadeed ka soo baxshay gacantaan kusoo qabtay bas dadka wuxuu ka qaadanaya 3 teela iyo meelahaas ku qaadanaya 3 iyo bar teela iyo markaa dadka saasay badanaa basas ku qaataan marka waxaan maadaama ninkan uu soo baxay awgeen meeshiisa uga soo kacay waliba asagoo meel aadan soo aaday walow waaba uga roonaan lahayn waxaan ku tallamay talo ma 20 baa siisaa mise 10 baa siisaa 10kii aan gacanta kusoo qabtay markii uu meeshaan u dhowna dajiyay wuxuu yiri halkaa ka baxa halkaa ka baxa halkaa ka baxa okay 10kii teelaan u dhiibnay no wuu diidan nakata oo ka dhaqaado waa ka soo qaadan lacagtana iska soo baxnay waa iska soo baxnay arrimahayaga waan soo dhamaysanay markaan arrimaheena soo dhamaysanay waa soo adeeganay waa soo yara daahanay magaaladan ku soo daahanay dadku waa so very beautiful dad aamusan dad masaakiina dad maaragta kaal iska arag oo iska shaqaysanayo aan caadi ahayn waa dadka meeshaa tagtay masaajid baad iska tagaysaa isaga tukanaysaa duhurkaaga masaajid ku tuko casarkaaga masaajid ku tuko maqribka ilaa maqribka masaajidaan kusoo tukanayna bes waa soo baxnay qodob kaleeto waxaan uga hadli doonaa ah Soomaalida sida aan isku nahay markaan qurbaha isku aragno iyo sida aan isugu baahannahay iyo sida aan isku nahay nacam aan isku colaadino ama maxay ahayd jisanjeedna caybka markaan isku cidlaysano ama maxay ahayd sida aan isku nahay markaan maaragtay isku cidlaysano sida aan isku nahay iyo sida aan isugu helowno isku jecelnahay markaan qurbaha isku nimaadno sheekada way soo socotaa qodobka kale oo Soomaali ahaanta wuu soo socdaa adigu qorraxda baa soo dhacday hal saac baa la gaaray waa iska soo cashaynay bas baan soo raacnay marka baskaas muxuuna keenayaa xaafadeenu keenayaa baska markaan soo raacnay marka baska aad dadku waa ku badnaa aad buu ugu badnaa dadku aad buu ciriiri iskugu ahaa dadkana waa fariista dadkeena anagu intii taagnayd baan marka ku darso dadkii taagnaa baan ka mid noqonay waan istaagnay anay gabadhii waxaan qabsanay meel kore xarig basaas loo qabsadaa meel yaroo dariiqada oo luuqar waa isku tiirin alaab baan wadanay boorsaan wadanay gabadhu marka saas waxay xagga daaqada ku sii jeesatay saasay u sii jeesatay dhinaca kale daaqada u jeesatay dhinaceeda gadaalana wuxuu xigaa dadkii anigu laakiin qaarkayga dambe daaqadan ku jeediyay dadkana waa saasaan ugu soo jeedaa qiso la yaab leh ayaa nagu dhacday nin baa marka wuxuu sameeyey gabadhiibu gadaalkeeda soo istaagay gabadhu boorsana dhabarkay ku wadataa boorsooyinkan dhabarka la saartana way wadataa oo xoogaa yaroo aan weynayn boorso weyn oo ay soo gadatana horey isku wadataa mid yaroo xataa aan leeyahay waa u dhiibayo way haysaa dhinacii gabadhii gadaalkeeda nin baa soo istaagay dad wadanka u dhashay aan leeyahay waa u dhashay waa qiso la yaab leh ninkii markuu soo istaagay dad baa meesha taagnaa laakiin ninka asaga ahay somehow ninaan fiicnayn buu ahaa wuxuu sameeyey marka wuxuu qabay funaanad ayuu qabay kore oo culus funaanadiiba hoos gacanta ka geliyey surwaadiibuu soo jiiday meeshii surweelkiis meeshii hore ayuu gaarsiiyey gacantiis ayuu geliyo sidaas gacantiis unbaa meesha kasoo taagan waa loo jeedaa marka runtii ninkii waan ka shakiyey gabadhii unbuu isku riixahayaa gabadhii unbuu ku dhowaanhayaa gabadhii unbuu isku jiidahayaa ninkii markaan fiirshay waa ka yara shakiyey waxaan iska kani ma fiicna waana damcan nin fiicanna ma ahayn wixii aan arkay been ma ahayn markaasaan waxaan ku dhahaa gabadhii dhegayso ninka gadaalkaaga taagan iska ilaali aniga iyadu waa isku dhownaa ma kala fogin laakiin ayadiibuu maaragtay maadaama anigu xaggiisa aan usoo jeedo aniga iguma dhiiran ayadiibu ku dhiiranhayaa waxaan ku ninka gadaalkaaga taagan iska ilaali ninkaan inaan ka shakiyo nin xun waay iska ilaali afkaygaan kula hadlayaa markaasay tiri maxaa dhahaysaa markaas waxaan ku dhahayaa ninka gadaalkaaga taagan iska ilaali aniga waaba xanaaqaba eygaan wax baas baan iri moogta allah waxaas tiri madhaa bismillaahi raxmaan raxiim habar maxay waxay tamaysaa camal way ku qosasho hay ku qosle ninka kaa gadaalaya iska ilaaliyaan ku dhahno iska ilaali ya fiiri xaggiisa u jeeso maxay ahayd yuuna ku taaban ninka iska ilaali
gabadhii waxay u moodaa inaan leeyahay ninka boorsooyinka kaa xadin iska ilaali haddana dhabarkiiba sii xejiso boorsooyinkii xagga soo xejisay sheekadii uu sii wadaa ninkii aniga markaan fiirsho yara nin kor fiirfiirin carrada fiirfiirin iska dhigayaa laakiin wuu isku dayahayaa gabadhaas inuu jirkeeda iyo jirkiisa istaabto waan la hadla waxaan ku dhageyso kursi baa marka bannaanaado anugu aan raadsado kursaan ku fariistay aniga kursigaasaan ku fariisanayaaye ninka iyuu ku taaban xaggiisa u jeeso iskana ilaali intaa waa hadlaya anugu iyadoo waxay moodaysaa aan leeyahay ninka boorsada ka ilaasho markii dambeeto waxbay dira dareentay waxay tiri ninkuma neef qaadaya muxuu ahaa waxay tiri neef iyo waxbaan dareemay tiri ninka waxay tiri qofka haddana gacantaydu u taabtay tiri xaggiisa u jeesatay gabadhii dabcan waxbay aragtay qofaan qumano inuu yahay oo waxbay aragtay waxaan caadi ahayn bay aragtay markaasay baska markaan soo raacnay meeshaan ka soo raacnay meeshii ku xigtay ayaa waxaan naga soo raacay wiil yar oo Soomaaliya marka wiilku waan arkayay inuu meelaha dhex taagnaayo dhowr qof baa noo dhaxayso xagga kale iska taagno wax danay heelaa kabaana gelino halkiisa iska taagnaayo inuu Soomaaliya anagu aan u jeedin laakiin dee markaas baahi nooma haynin gabadhii markay aragtay qofkaan inuu yahay qof aan caadi ahayn ayaa wiilka Soomaaliga ahaa oo asaga iyo qof kale markaa u dhaxeeyo isku yara dhow yihiin markaasay tiri aboowe kaalay kaale markaasuu ninkii asaga ahaa oo balaysnaa markuu arkay gabadhii inay ninka u yeerayso oo wax fahanayo aniga hadlaayo ayada qoslayso wiilka u yeerayso ayuu bow meesha basku istaagay baf ka yiri waa degay wiilka way tira bow kaalay wiilka markuu yid gabadhii halkii soo istaagay markaasuu yiri maxaa kugu dhacay markaasuu tiri bow waxba arkay hayga tagin camal tagno halkaa markaasaan taa qosla waxaan niyadda iska yiri la Soomaaliyeey yaa marka isku baahataan yaa sida iskugu yeeranaysaan oo iskugu ciidamaysaan iyo sida aad isku colaadisaan marka isku gooni noqotaan marka wiilkii halkiiba soo istaagay gabadhiiba soo ag istaagay waa soo raacna baskii calaa kulli xaal wuxuu yiri maxaa aragteen maxaa ku dhacay markaasaan niri iska dhaaf iyadoo waxba sheegan iska dhaaf calaa kulli xaal waddanka dadka jooga isku mid maahan haddii marka ay ahaan lahayd dal Soomaaliya ama Soomaaliya ay ahaan lahayd ninkaas ceeb baa ku dhici lahayd laakiin annagii runtii kumaana dhiiran maana caayin maanan fadeexadayn laakiin waa isbadbaadin marka labadaas qodob oo ah dalka Turkiga iyo dal fiican dad fiican leeyahay laakiin adduunka waxa ogaataan in meel kasta adduunka ka mid ah in dad xun joogo qodobka kale aad kala soo dhex baxaysaan sheekada waxa weeyaan Soomaali Maxamedey waxa weeye markii aan isku baahano baahideen in aan isku qabnaa ama Soomaalinimada ama walaalnimadu aad bay u weyn tahay waayo wiilkaas anagu hadda wuxuu ahaa ma naqaan qabiil uu ahaa ma aqoon Soomaalidu qabiilay sheegtaa kana Hebellandiya kana Puntlandiya kana Somalilandiya kana Soomaali galbeed kana maxay Jubbalandiya kana galmudug kana waxaasad sheegtaan ma garateen laakiin xataa Jabuutiyaan ahaaya xataa wax alla wuxuu wiilkaas asagoo rabiso nin dhalinyaro ahaa wax walba asartiisa ka suurtooba laakiin wixii ka imaan lahaaba wiilka yar Soomaaliga waxaan nagala weynaada Soomaalinimada kala weynaatay ma garateen marka Soomaaliyey ma kala maarantaan never ma kala maarantaan waa in aad ilowdaan waxyaabahan la yiraahdo ana Hebellandiya ana Quraclandiya ana Geedlandiya ana Higalandiya ana Jinilandiya forget just you are brother and sister always we never forget you never be someone never we need together we are brother and sister same blood so warkii oo dhan Soomaali hamidowdo Soomaali waa mid xataa haddaad kala socotaan oo kala magacaysataan yaa waxaan nahay Soomaali
dad Soomaali la yiraahdo iyo dal Soomaaliya la yiraahdo waa goosanayaa kani mara buluugu qabaa kani waxa waaye hebel sandudi waaye kan waxa waaye hebel anaa landheera anaa hebel langaaba anaa hebel budu bada bullshit forget you are Somali always okay waxaan leeyahay I love you all subscribe like and share waan salaamayaa oo aad jeclahay bye bye nabadgelyo nooli kulantay baryahan ismaana arag muddo 2 bilooda ma soo gelin dee igu caawiya subscribe-ka iyo share-ka iyo like bye